السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين بعد داودياشا Somaliland All Report Media Group waxaad daawadayaal ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu idiga diyaarinay Somaliland oo markii ugu horeysay laga hirgeliyay xarun casri ah oo diyaarin doonta muraayadaha kala duwan ee bulshadu ay indhaha u isticmaasho xaruntani oo ah mid si heer sare u qalabaysan isla markaana ay ka shaqeynayaan khubaro ku xeel dheer arrimaha indhaha ayaa bilaash ku baari doonta bulshada kala duwan ee ku dhaqan guud ahaanba Somaliland xaruntan oo aanu maanta booqanay ayaa waxa faahfaahin naga siiyay mulkiilaha ama aasaasaha xaruntaasi Cumar Xasan Ciise waxaanu ka waramay ahmiyadda ay Somaliland u leedahay meheradani iyo fikirkii uu ku dhashay asaaska xaruntani oo la yiraahdo Asha Opticals waxa ay dhamaanba Somaliland xaruntan oo maanta si rasmi ah uu wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashadu xariga uga jaray daawadayaal daawasho wanaagsan meesha waxaan u duceynaynaa in Ilaahay ka dhigo meel lagu waaro insha Allah bilaashka horumar rasmi السلام عليكم ورحمة الله عمر بزوقلي ما أدري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد كل هالكلام اللي احتاجني ومهارات عصب وضل كنا كل عصب تدخلوا بهاي هاي ضل كلوا بهاي هاي وعدوا عايشة أوبتيكالس أما إيشا أوبتيكالس وفسوا كل مقولة لا ساك عايشة لا لكن إيش أوبتيكال ونقولس وأنا إيش أموي معناه ومهارات عصب واحد يقول كوي شقابور بأبورسا والله بعض قروح في مجالات وطاي مرصدحات أما مركب كواد بالنقون كرسة وحاجة عافماتك وإنديه إنه ده أشياء ده كله بقالسين بكبديه قلبك عصري قال إنه أنا هاي إيش اللي وعد بيريو مرايد الوصول مني سيستم كان عصبي كمبيوترايزر كا وسيستم إنه عصب وحمر كان يرانا يخلط كي مرايد كل عليها وحيرانا يخلط كي عبر كل عليها وحبت بهذا يمرك إيش كان أنا نقعد وزارة وحبرشة تعليم تسرنا عمر واحد نص هذا القرن مر سيدي لود ديار لها برنامج وزارة إيو مهرد بيس ليج لها مستقبل كله إن أوبتك تشيكين كله سمعي على الأقل وهذا يبسي شد مرايد أنا ده وحي والد كوي يمكن أنه يبيو وحي مالك إنه يبيه لكن بالسكولة دي عروض تيران شوكتين عدي بورو هين اللي جاي أبغى معلم كبير وكولا إيو أما كوكب صدوق جنب بدو أركوي دي سمرده لكن أي كان سبيني أركتدي اللي هنا أنا شيء كريم وقت تعلم تجيء دون وقتها كلي توقي مقالة دي يودي عند كلام أنا مثلي وحن رجينا إنه مهردني لهي كدي جمد كلي دي عندي مال قليل تسمى يستطيع وصاحب كل عمره الريانة إنه الله بركة يو حاجة كلنا واحتر كلنا لهي تدك بركة يو وكذا عفمات كي واحد برشلونة عند كستوح كغلطة وسيك برايفت تحت وقول قبضته ما هنقي ذكر كهذا اللي ذا كدول ذهنا ولا شقينا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر عمر به هاش يبغى الله يرضى لك النور سبب السلام عليكم ورحمة الله إن بدن بان دروني مهنا مكفر راهي الكيسة مهردنا عايشة أوبتيكال الحمد لله مركي جدا بيسا وغن يقول يسمي يضع يوبا عنتا هاي وطن Somaliland نحن رجينين إن عن dadka aan kari karin inay iibsadaan muraayadaha indhaha iyo caruurta yaryar ee iskuulada aan ku bilowno oo aan caawino alxamdulillah waan ku guuleysanay wasiir garasna waxbuu badan nala qabtay marka waxaan rajaynaynaa inaanu sii wadno dawladuna ay wax nala qabanayso hadii ilaahay إسماعيل عمر waxaan ku weydiin lahayn meheradan cusub ee indhaha lagu sameyn doono bal bulshada Somaliland ee soo kordhisay bal faahfaahin yar oo kooban ka sii waxay kaga duwan tahay meheradii hore waa markii ugu horeysay laga sameeyo
meheraddan oo kale hargeysa Soomaaliya berigii hore dhibaato badan bay dadka haysteen oo waxaa loo diri jiray dibadaha waxaa loo diri jiray Dubai, Jarmalka, Talyaaniga iyo dadku u diran jiray waxaanay qaadan jirtay 3 bilood bil week laakiin anagu waxaan ku soo kordhinay waxa weeye in 15 daqiiqadood qofka lagu siiyo muraayad isagoo taagan la cabiro isla markaana muraayad la siiyo ayaan waddanka ku soo kordhinay waxaanu keenay brand waxaanu keenay quality waxaanu keenay mashiinadii ugu dambeeyay in dibadaha laga isticmaalo oo isla 20 minutes qofka uu ku qaadanayo nooc la leeyahay marka ilaahay waxaan ku rajeynaynaa inay hirgasho in garanaysaa ay noqoto dadkuna ay nagu daydaan Ismaaciil waxaa jira service aad u sameeysaan Cumar waxaa jira service aad u sameeysaan dadka muraayadaha iibsanaya oo service-da maxad nagu sheegay bisha ugu horeysa waxaan sameynaynaa qofku hadduu xabad iibsado inaan xabad firiyeys in bil gudaheed waxaan sameynaynaa free test in qofka lagu eego in maxay ahayd berigii hore may jirin mashiino lagu eego qofka test indhaha dhakhaatiirta un bay taalay dhakhaatiirtuna dadka lacag bay ka qaadi jireen laakiin annagu free baan ugu test garaynaynaa waxaan bilaabaynaa in aanu iskuullada carruurta yaryar aanu bilowno oonu iskuullada tagno oo aanu free carruurta yaryar ku jeegalo dawladduna way ka heshay arrinkaa waanay nagu dhiirigelisay maxay ahayd markaynu iskuullada dhammayno waxaan doonayaa inaanu bilowno ciidanka free ku aagno muraayadahan aanu 50% siino deetana dawladda dadka waaweyn aanu 50% siino bishii aanu siino 20 qof oo free ah oo dadka waaweyn aan kari karin inay iibsadaan waxyaabo badan oo aan Somaliland dadku aan kari karin ayaan doonayaa inaan u sameeyo talabaad problemka ugu weyn ee jiray waxa ahaa Somaliland dadka inaan laga qaadi jirin qiyaas sax ah oo qofka inta qiyaas qaldan laga qaado loo diro markay muraayadu timaadana haddana muraayadiyo aan sax ahayn qofkii uu xidho magaalada 60% waan dhalaayo markaan u baahnay ismana oga dadka ismay arag meelo dadka lagu baahnay waxaan doonayaa inaanu dadka oo dhan wixii danyarta aanu caawino 80% 70% hor ilaahay aanu ugu qabano dadkana dadka tijaarta ah ee waddanka degan ee reer Somaliland waxaan doonaynaa inay nagu daydaan dadkana ay wax u qabtaan tan oo kalena ay sameeyaan oo annaga ay nagu daydaan tijaartu lacag bay ka doonaan dadka masaakiinta laakiin annagu kuma doonayno waan caawinaynaa ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inay dadka nagu daydaan sidaan oo kale ay sameeyaan dadka aan dhiigooda la miiran dadka wax loo qabto aan ilaahay ka baryaynaa dadkana dadka ugu waaweyn ee tijaarta ee magaalada jooga ilaa ka ugu yar ilaa ka ugu weyn lacag bay ka doonaan cidna ma caawiyaan annagu laakiin waana caawinaynaa your mobile number? Okay. 422 9155.
intaasi daawadayaal waxay noogu dhammaaday barnaamijkii aynu ka eegaynay xarunta cusub ee indhaha ee Asha Optics waa farsamadii iyo habayntii King Production Ali Ibrahim Yusuf waxaan daawadayaal idinka tagaynaa dhammaantayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh